hadalka caynkaasa ee qiimaha leh afka qiimaha leh ayay haddii aw hadalku caana ahaan lahaa suugaantu waxay noqon lahayd labeentiisa hadalka sidaa u qiimaha leh ayay intiisa ugu quruxda badan tahay suugaantu waxa weeye hadalka sidaa u quruxda badan intiisa ugu sii quruxda badan weeye ayaa la yidhaha suugaan literature inaan idaacadda maanta weydiinayay wuxuu yidhi suugaantu maxay u qaybsantahay suraadka aan gabayga aan tirinayaana wuxuu ka mid waxaan dareemayaa inaan ku contribute garanayo to the human heritage in general ayaa ku contribute ayaa fiilkee walaga caynkaa wey waaya suugaantu hadday sidaa tahay suugaan oo dhamme markaa waa isku mid si ubay wada qaybsantaa inagu waxaynu u qaybinay tixya tiraaba af soomaaliga lagu dhahaa gaaladu waxay tiraahdaa poy iyo prose labaasay u qaybiyaan af soomaaligana waa tix iyo tiraab waan xasuustaa nasiib waxaan u yeeshay inaan guddigii markii af soomaaliga la qoray 73 markii af soomaaliga la qoray 73 baa waxaan ku biiray guddigii af soomaaliga qoraalkiisa iyo dejintiisa ka qayb qaatay anaa gudaa yaraa markaa ragii guddiga af soomaaliga waxaa loo baahday erebixin in erebixin la sameeyo markii af soomaaliga la qoray erebixin baa loo baahday markaasaa la yidhi ha la sameeyo waxaa soo baxay poem iyo prose maxaynu u bixinaa waxaa la qaatay tix iyo tira haddaa u fiirsataan afafka suugaan afeedda ku shaqeeya oral literature suugaan afeedda ku shaqeeya wax qoran ma jiraan marka xasuusta la xasuusanaya wixii la yidhi way adkaa waxaa wax ka tara waxa la yidhaha alliterationka alliterationku waxa weeye xaraf raac ah ayaa af soomaaliga lagu dhahaa ereyo ku wada bilaaba xarafyo isku mid ah ayaa la yidhaha alliterationka iminka tix iyo tiraab xasuustoodu inaad xasuusataa way fududahay sababta oo ah waxay ku wada bilaabmaan tacbay ku wada bilaabaan alliterationkooda isku mid ah afafka suugaan afeedda oral literatureka waxay isticmaalaan waayo waxba ma qora si loo xasuusto waxaa la israaciyaa lamaanayaal isku xaraf ah rag iyo ruux war iyo wacaal joog iyo jiif kafal iyo kowl yani xeer iyo xaagaan waxaa la isticmaalaa ab iyo abnaq dooc iyo dareen waxaa la isticmaalaa xarfo isku mid ah waxaa loogu talagalay xasuusta ayay fududaysaa matalan hilibka haddii iminka neef la qalo neefka wuxuu u qaybsamaa laba neefka oo dhami gebigiisuba gudahaan laba u qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa so iyo saan haragga sare oo saanta ah iyo inta soo hadhay oo soc la isku idhaahdo waxaa la isticmaalayaa lamaane xasuusta lagu isticmaalaya sugaanafeeddaa leh so iyo saan buu hilibka oo dhan u qaybsamaa haddii saanta aad ka qaado oo aad soo reebto inta isku fadhida ee kale oo aad saanta ka saarto waxay u qaybsantaa laf iyo lud waa laam layasoo arkimaysa laam bay raacaysaa taasla laf iyo lud ayay u qaybsamaysaa haddii lafaha aad ka saarto oo aad soo reebto inta hilibka ah haddaad soo reebto waxay u qaybsamaysaa jiid iyo jibaadh bay u qaybsamaysaa oo waa jiinley markaana waxaa isticmaala yani marka aad geedka la tago ee xeerbeegtigeedu geedka tagto waxay u leedahay legal terms bay soomaalidu lahayd legal terms erayo qaanuunka lagu isticmaalaa bay lahayd si ay u xasuustaan dadka odayaashu waxay isticmaalaan lamaanayaasha garta marka la qaadayo kiiska soomaali dhex mara dhammaantii markii la isu geeyo soomaalidu waxay u qaybin jirtay laba baalkeena imkaa taabanaysaan dotcomkiina yar marka odayaashu way taabanayaan kiisku waxa odhanayaan ma dhurbaa mise waa dhaqan kiis oo dhamme waa dhur ama waa dhaqan waa dhaclayay soo arkimaysa
kiis kasta oo Soomaalidu isku qaybsato waxay u kala fayl laba fayl bay ku kala riteen labada fayl midna waa dhur midna waa dhaqan waxa la wixii dhiig ku saabsan dhiig ku saabsan kiiskaasi faylkiisa dhur baa la yiraahdaa dhur waxa la wixii aan dhiig ku saabsanayn nolosha dhaqamaadka ku saabsan dhaqan baa la yiraahdaa marka kiis oo dhami marka odayaashu geedka soo fadhiistaan waxay oranayaan ma dhur baa mise waa dhaqan bay oranayaan waxa la oranayaa waa dhur badan waa dhiig kiiska soo baxay waa dhiig dadka xutaabanaya halkiisa waa dehelo xusuustiisa odagu wuxuu koonayaa ma qurba mise waa qool kiisku hadduu dhiig yahay wuxuu leeyahay lamaane laba fayl buu furan oo isku xaraf ku bilaabma wuxuu oranayaa ma qurba baxday mise qoon baa dhacday nabar baa dhacay waa labadaasuu kiiska dhiig qudhiya qool buu kala baxayaa haddii uu kiisku yahay dhaqmaati waxay oranayaan ma xilaa mise waa xoolo kiis fayl kala laba fayl bilaa oo xaq ku bilaabma xilo iyo xoolo Soomaali waxay isku qabsan jirtay kiisaska isku dhaqamaatika ah waxa loo qaybiyaa xilo iyo xoolo xilaha lagu wada hadlayo waxa weeye naag la furayo naag la dubaalayo يعني ناقل خلا هذا كيس فيل بين هذا وحلا كوساب صلي مدونا بكا كو خديك الحوار على سكو هيستا خدو كيس كحولة يحي لابو كلا بحيا لابو فيل بولي ولا تابليا حسوستي بالغ تابليا لابو كلا بحيا وحلو يا بابا بسوا بين با فيل لابو فيل بعلي بولي أما هو بار حوارات بالغ سكو هيستا أما بير بالغ سكو هيستا لو أخر من الهاجري لباس على سكو هيستا كيس حوله لباس ورايا بريا بير خدو بار حوارات دغدو لابو وسي كلا بحيا وحلو لابو فيل ما مجال باب سوا مور بالونية، لما فيلو مين ما لا يبولي، ومجال يا مور حوله على يسوق الصديق لابو بين قرية، حوله حركوشة مور ده وحلا يلانا حردا، ولا مور الدوجة هذا اللي بغشوا حردا اللي بابي حوله كوشة بالغا بالغا، مور وحردا، وحلا حير وحلا يسوق بسكرة، أو كيس كذا لكرة. حورة مورة كتيرة حيرة كتيرة وأكوابا يا سوق أبصدا وحال سوق أبصدا دد ولا أبي بعدين نحل وداعة أيوة وحورة حيرة كل شيء نحل بعد سوق أبصدا لو ما كلام أوكي فايل بلا ذا يكدوني هاي كيسكو مد مورة خديك هلا ومجال حوله ومجاله أما بعدي بيكوي بعده أما دع بيكوي بعده أما تو بيكوي بعده ومجال بولورا وحنا كوجد الله وحلو استعماله لما نياش تحية تراب كي لقالني وحلو استعمالي سؤال فدا أباحته سؤال فدا وحي أباحته إلا استعماله حرفها أي كذا يعني حرفها اسكو حرف راعة إريد حرف راعة وهي سؤال تهدم ما كان سؤال تلاقيه السؤال ثلاثة هكذا حقايا كذا وهذه وافق وقصة هي عرفت الأمور حتى يكتان قولنا قانونك وحيلين أريوه legal terms بالله أفبي ليه وافق لو تايدا بكرة أري ولي بوحولي هاي definition هي معنى حديدا أو legally ليس لقلتي أو أري ما قاعد كلام عليه إكبر هديك لا أري قانون قول ما يدي erayga waa in la define gareeyo la xadido la yiraahdo eraygaasi qareen markaan leeyahay eedaysana markaan leeyahay dambiile raafa markaan waa eray waliba wuxuu leeyahay macno xadidan oo aan kala bixi karin ayuu leeyahay oo waxa la yiraahdaa haddaan macnaha xadidan la siina qaanuun ma jireeyay oo kalmadu macnaheedu ayaa biguutis baadaan qaanuun ma jireeyay waayahay قلنا بايولوجي قلنا ساينس قلنا ادمنستريشن قلنا ولما waxay leedahay kelmado technical terms sabay leedahay oo ereyada waxa la siiyaa macnayaal xadidan oo aan la dhaaf karin qolo waliba oo ereyga hadaan lagu definition lahayn macluumaad marka qaanuun nimka la daabacayo erey walba definition kiisa la yooshadiya kelmada waxa lagu jeedaa
iyo sidaa kow qolo walbana way leedahay ama caafimaad ha ahaadeen ama ha meesha dooniya ha ahaadeen waxay leeyihiin eray bixin u gaara oo ereyadu macna xadidan leeyihiin halkan imika aawo waxaynu ka waa hadlaynaa waa wax ka duwan waa meesha erayo sugaanta marka laga hadlayo waa meesha erayadu seetada ku goostaan erayadu waxay jebiyaan gidaarada iyo definitionka ay lagu xirxiray bay jebiyaan ma ogola waa meesha waalid iyo meelqabka u dhaxaysa sugaantu oo erayga xadidan iyo waxa la taqaan baayo